من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. إخوتي الأعزاء، waxaan u manaynhayaa waxaan meesha isugu nimid oon u fadhino wax kale ma aha maadaama ay tahay bishu rabiicul awwal leyladuna ay ku aadan tahay leyladii nabigu dhashay sallallahu alayhi wa sallam. muslimiintu waxay isugu imaadeen waxa weeye inay dhageystaan ay ku raaxaystaan siirada nabiga sallallahu alayhi wa sallam. waxaa aad u yaab badan sida hadda culimmaduba ka warramayeen wax horay u jiri jiray meehee in hadda muran la geliyo oo la yidhaahdo lagama sheekayn karo nebi moxamed sallallahu alayhi wa sallam. nin shaacira wuxuu yidhi walaysa yasixu fi ladhaani shay-un ida اxtaaja annahaaru ilaa daliilin. walaysa yasixu fi ladhaani shay, wax qalbiga ku ansaxayo iyo wuxuu qalbigu rumaynaya maba jiro ida اxtaaja annahaaru ilaa daliilin haddii lagu yidhaahdo maalinka daliil u keen. macnuhu waxa weeye waxay ka dhigan tahay nin kale intii meel la isugu yimaado lagama sheekayn karo siiradii nabiga sallallahu alayhi wa sallam. ninka sidaa leh intii meel la isugu yimaado dad muslimiina meel ay fadhiistaan inay ka sheekeeyaan siiradii nabiga ma bannaana nin kale. bal hadda u fiirsada, waxay la mid tahay ninku leh maalinka daliil u keen, maalinkan inuu jiro daliil u keen. say u dhacday in la yidhaahdo hadda caawa masaajidkan isugu nimid nebi moxamed wakhtigaasuu dhashay, sifaadkiisu saasay ahaayeen, ninkii jeclaada ajirkaasuu leeyahay, ilaahay saasuu u weyneeyey, fadaa'ishaasuu leeyahay, waxaasaa lagu ammaanay. intaa oo bas oo meel la isugu yimaado ma bannaano ninka kule. dee ninka mawliidka diidan macnihiisu waa intaa un soo ma. mawliidku ma wax kala in la isu yimaado oo nabiga laga sheekeeyo un soo maaha sala allahu alayhi wa sallam. marka ninkaa wuxuu la mid yahay ninku leh maalinka daliil u keen. waxaad ku qancisa miyaad garan ninkaa ninku yidhahdo maalinka daliil u keen? waxa lagu qanciya male. imaamu buusiri baa wuxuu yidhi raximahu llah qad tunkiru lcaynu daw'a shamsi min ramadin wayunkiru lfamu dacma almaa'i min saqamin. qad tunkiru lcaynu ishu inay inkirtaa laga yaabaa daw'a shamsi qoraxda iftiinkeeda. nin baa halkan taagan wuxuu leeyahy qoraxdu maba iftiimayso. ha la yaabin min ramadin daaf baa haya indhuhu ka jiran yihin. dee waxba muu arka soo maaha. hadday mar indhihii xanuunsan yihiin waxba ayn arkayni qoraxda iftiinkooda ma arkaya. min ramadin min ajli ramadin daaf dartii buu indhaha la arki lahay. wayunkiru lfamu afku inuu inkiraa laga yaabaa carabko dacmal maa'i biyaha dhadhankooda. biyuhu ma macaano inuu yidhaahdaa qofka laga yaaba. min saqamin xanuun dartiisa malaariya hayso. qofku hadduu xanuunsado malaariya ay ku dhacdo biyihii waa la kharaaraanaya, biyihii macaana. maxaan u soo qaadanayaa beydkaas oon taswiir idiin siinayaa? wax lagu dheeraado iyo wax yacni la wado ma aha. dadka hadda leh intii laysu imaado nebi moxamed lagama sheekayn karo sala allahu calayhi wasalam. waa wax qalbiga ka jiran.
إلهي وحيري سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور بإلهي فإنها لا تعمى الأبصار إن دلا أنت اللي شيء دين تلو شيء وحن ووح إن دلا صم وي عم وي بكم وي فهم لا يفقهون لا يعقلون وحما فهميان مركا الواهي ويكاين دبدين وكا أرد بدين وأكون أرد يقالض ماشي أي لايهين وحكارك لايهين وحق إكارك لايهين وامح وقلبك إيش وحلقارك قلبك وي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور بإلهي أقو أو يقيني ننك كل عليه الصلاة والسلام النبي انتي ميل يسوي ماذا لقى مشي كينكر مال لأركنا أسوي شرق لي ربنا إن لقى شيكيو شيخ الباسايري نبي محمد إن لا يسوي ماذا ما بنانو لي سيرة دي سلقى شيكي بل كورن وأجرين قلبك كجرين كاس مركا وحان وحير ده موضوع وحوي أنا عاو يسوون نمد وعدلشة النبي صلى الله عليه وسلم أنت شريفكو إذن كجاهد لي أموي أنت أمان راعينا وحبكو زيادة ماي ما هي الموضوع أنت أنوي سوما أنت ناسك أمان وش وحان أوصي نغني إنه وأن تلذذا بذكره صلى الله عليه وسلم النبي حسدي سي شيقدي سأمكم عن سنين المولد ما لهن وحيلا تاغيين مولد هرت مولد كمعنيه صارت إلا فما كري مولد هرت وحا اللي هذا لفظي مولد اللي ومصدر ميمي هو دلشو لبا معنو أيا لو إطلاقا مركي مولد لغو ليه مولد بالله دغيا إيو مولد كسيدا وي إيو مركي لغو ليه مولد كمعنيه سو والله معنون معناها كوباد وحوي خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم من رحم أمه مالك النبي محمد الرحيم كهو يدي كصوبحي ودلشة النبي قوي مالن اثنين يا هيد بشر ربيع الأول لبيه طبنت هاي ميلادك تاريخ ذا وحالك جوغي دلشة النبي عيسى شنبقل تدباتن يكو على تقريب واسدا تو مركي كهذا ليان قريبا من 600 بي لح بقول wax ku dhow weeyradaan culimada siyarka qaarkood markay ka hadlayaan 570 bay ku sheegaan miilaadiyada waa taariikhdan hadda maraysa 2004 marka maxaa laga joogay 571 subax isniin uu dhashay bisha rabiicul awwal 12keeda mawlid baa la yiraahdaa waa dhalashadii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam sanadkaas cinda al-arab waxaa looga yaqaanay oo la dhihi jiray caamul fiil sanad caadi oo la yaqaanay buu caamul fiil macnaha labaad ee mawlidka lagu sheego oo loo isticmaalo waxa weeye ضم شمائل الرسول وصفاته الخلقية والخلقية في كتاب واحد نظما أو نثرا ضم شمائل الرسول رسول كصفات كيسي أو لا أروريو شمائشي سي أو لا أروريو الخلقية والخلقية صفات كي إلهي كو أبوري يتي طبيعة هيدا إلهي أسيه وناكسنيد أو كتاب لغو أروريو اللي سيقو جيوان كتاب كاسنا وحال إرادا مولد بالإرادا وكتاب كاتا سيرادة النبي لغا أخرية مولد كاللي إرادا وي مولد كمعنيه سلبداس معنى الله استعمالها مولد باعاولا دغيا هدي لا يرا سداس او كلا ان سوق ايمانينا الاحتفال با لغو يرادا حق اللغه العربيه او markii la isu yimaado ihtifaal weeye ayadoo yaani i'tino iyo qasad la siinayo dhalashada nabiga sallallahu alayhi wa sallam hadaba ayadoo hadda waxyaab aad u yaab badan tahay dadka maanta le in mawlidku banaan yahay horta qofku wuxuu ku weydiinaya wax yaab leh marka daliilka u raadinayso meel la isuguma imaan karo nabi maxamed lagama sheekayn karo dad kale maanta wax loo jawaabo ayagoo ahayn laakiin
dadka mu'miniinta waxa yani qulubtooda aanu ku qancinayna adillada qur'aaniga iyo adillada min sunnati almudahhara sunnada mudaharada ka sugnaatay ayaan ku qancinayna aayaad aad u fara badan baa waxay ku tusinayaan ixtifaalka mawlidka nabiga sallallahu alayhi wasallam aayadda koobaad waa aayadan aad ogtihiin oo mar la arko culimmadu idiin sheegaan suuratu yuunus baa ilaahay wuxuu ku leeyahay qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun aayaddan ilaahay wuxuu ku sheegay laba shay oo uu amray in lagu farxo labadaa shay waa fadli iyo raxmad oo labaduba ilaahay xaggiisa ka yimid fadlillaahi iyo waraxmatihi baa leeyahy labaduba ilaahay baa loo nisbeeyey labadaa ha ku farxeen wax lagu farxana ayadaa ugu wanaagsan mufasiriinta markay aayadda ka hadlayaan xagga tafsiirka ragga loo ictimaado waad ogtihiin oo qur'aanka markii laga hadlayo ibnu cabbaas waxaa la yidhahdaa turjumaanu lqur'aan xabrul ummana waa la yidhahdaa waxaa yacni laga soo naqilayaa mufasiriintu ay leeyihiin ibnu cabbaas inuu ku fasiray fadliga ilaahay waa islaamka raxmadduna waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam laba tafsiir unbaa culimmada agtarkooda yay raxmaddaa ku fasirayaan iyo fadligaas fadliga islaamka iyo qur'aanka unbaa lagu fasiraa raxmaddana nabiga iyo qur'aanka unbaa lagu fasiraa markay ku fasirayaan raxmadda inuu nabiga yahayna wa khayru maa fasartahu bilwaarid waxaad ku fasirta waxaa ugu khayr badan waaridka oo tafsiirulqur'aani bilqur'aani naska in nas kale lagu fasiraa ugu wanaagsan raxmadda nebi maxamed weeye markay leeyihiin culammada mufasiriinta maxay ku fasirayaan qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu raxmaddaas inay nebi maxamed tahay maxaa u daliila ilaahay baa raxmad ku sheegay wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin qur'aanka naftiisana waa lagu fasiraa raxmadda qur'aanka ilaahay wuxuu yidhi alif laam miim tilka aayaatulkitaabi alxakiimi hudan waraxmatan lilmuxsiniin baa ilaahay yidhi aayadihii kitaabka maxaa lagu tilmaamay hudan waraxma hanuun iyo naxariis inay yihiin wa tafsiilan likulli shayin wa hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun baa ilaahay aayad kale ku yidhi marka raxmadda haddaad qur'aanka ku fasirto raxmaddaas ayadoo qur'aankii aw axadka lagu soo dejiyey waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam haddaad nabiga ku fasirtana haddee aayaddii baaba kuu caddaynayso ilaahay wuxuu leeyay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin aayaddaas waxaa ilaahay nagu amrayaa inaan raxmaddiisa ku faraxno raxmad ka weyn oo caalamkan la keenay nebi maxamed ka weynna ma jiro sala allahu calayhi wasalam daliilka labaad ee qur'aanka aanu ku haysanno ee na tusinaya ixtifaalka nabiga waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku sheegay qisas alambiyaa ambiyadii dhammaantood ama bacdigood qisadoodii baa ilaahay ku sheegay qur'aanka wadkur fi lkitaabi ibraahiima inahu kaana sidiiqa nabiya wadkur fi lkitaabi muusa inahu kaana mukhlasan wa kaana rasuula nabiya واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا waxaa ilaahay qur-aanka noogu sheegayaa ambiyadii hore qisastoodii oo weliba nebiga leeyahy calayhi salaatu wasalaam xus oo qur'aanka uga sheekee dadka yani ambiyadii qisastoodii uga sheekee isla markaa markii ilaahay uu qur-aanka nooga qisooday ambiyadii yaa haddana ilaahay aayad kale wuxuu noogu sheegay qisadoodu inay tahay cibro laqad kaana fii qisasihim cibratun liuli lalbaab ambiyada qisadooda iyo ka sheekayntooda cibro iyo iimaan baa ugu sugan kuwa yacni iimaanka u saaxiibka ah liulil albaab waay waa dadka cuquusha saliimka ale caqliga saliimka alehoo iimaanka ilaahay u ku manaystay way
waxaan iimaanka lahayn ayagu cibro ay ka helayaan ma jira way daliilka saddexaad ee qur'aanka aan ka qaadanayno ixtifaalka nabiga aan u daliishanayna calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay qur'aanka nabigiisa asagoo la hadlayo wa kullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nusabbitu bihi fu'aadak waxaan kaaga warramaynaa nebi maxamedow sala allahu calayhi wasalam ambiyadii qisadoodii baan kuu sheegaynaa waxaan qalbigaaga ku sugayna waay mar haddii nebi maxamed ilaahay uu leeyahay qalbigaagaan ku sugaynaa annaga dee aad baan ugu baahannahay in nabiga siiradiisana looga sheekeeyo sala allahu calayhi wasalam iyo xayaatadiisii si iimaankeenna uu ziyaado waay daliilka afraad ee qur-aanka aan ka soo qaadanayna waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aanka noogu sheegay asagoo nebiyullaahi muusa ka qisoonayo walaqad arsalnaa muusa biaayaatina an akhrij qawmaka min adulumaati ila annuur wadakirhum biayaami illaah nabi muusaan dirnay aayaadka annagii baanu la dirnay qoonkiisii baan u dirnay inuu mugdiga iyo jahliga iyo gaalnimada ka saaro oo nuurka uu u saaro waxaana nidhi ilaahay aan ku amarnay buri wadakirhum biayaami illaah wadakirhum biayaami illaahi ayaamaha ilaahay waxa weeye nicamuhu ilaahay nicmooyinkiisi wey nicmada ka weyn nabi moxamed sala allahu calayhi wasalama oo ilaahay ummaddan uu siiyey maxay tahay imaamka la yidhaahdo muxamed mutawalli shacraani alimaamu shacraani aayaddan markuu soo qaaday wuxuu yidhi waxay aayaddan daliil u tahay buu yidhi ixtifaalka dhalashada nabiga sala allahu calayhi wasalam waa imaamu shacraani wuxuu yidhi wa khayru ayaamillaahi hiya miilaaduhu sala allahu calayhi wasalam maalmaha ilaahay waxa ugu khayr badan nebi maxamed dhalashadiis maxaa yeeley wuxuu yidhi nebiga bicsadiisii soo saaridiisii rasuulka laga dhigay hijradiisii uu haajiray maka uu ka haajiray islaamka faafay oo nuurkiisu caalamka oo dhan uu ku faafay intoo dhanba waxay ka dhalatay oo farac ka ahayd dhalashada nabiga sala allahu calayhi wasalam habeenka nabigu dhashay waa habeenka islaamku dhashay oo nuurka islaamka uu dhashay way daliilka shanaad ee aan qur'aanka ka qaadanayno ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku leeyahay warafacnaa laka dikrak nabi moxamedow magacaagii iyo dikrigaagii baan kor u qaadnay baa ilaahay leeyahay ictifaal nabigoo loo sameeyo maa hiya ma ahaanin ilaa tawqiiruhu in nabiga la weyneeyo yani wa rafcu dikrihi dikrigiisoo kor loo qaado un weeye maxaa yeele ilaahay baa weyneeyey subxaanahu wa tacaala mufasirka la yidhaahdo qataada wuxuu yidhi rafaca allaahu dikrahu nabiga dikrigiisa ilaahay baa kor u qaaday fi dunya waalaakhira adduun iyo aakharabo maxaa yeelay wuxuu yidhi falaysa khadiibun nin khudbo akhrinaya ma jiro walaa mutashahidin ma jiro walaa saaxibu salaatin ma jiro ilaa wahuwa yaquulu wuxuu leeyahy ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah markii ilaahay magaciisa la soo qaaday nebi maxamed magaciisana waa la sheegi ilaahay baa magaciisa kor u qaaday abu saciid alqudri wuxuu wariyey xadiis saxiixa uu warinayo ibnu xibbaan oo uu saxiix yeelay nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ataanii jibriil baa ii yimid buu yidhi nabigu faqaala wuxuu yidhi buu yidhi jibriil baa ii yimidoo wuxuu yidhi ina rabbii wa rabbak yaquulu tadrii kayfa rafactu dikrak aniga rabbigay oo jibriila iyo wa rabbaka rabbigaa nebi maxamedow wuxuu ku leeyahay ma garanaysaa sida aan dikrigaaga kor ugu qaado ma taqaanaa markaasaan idhi buu yidhi maya ma garanayo allahu aclam qaala wuxuu yidhi buu yidhi ilaahay idaa dukirtu markii la ixuso dukirta macii adna waa lagu sheegayaa bal ilaahay maqaamkuu gaarsiiyey wey nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam daliilka lixaad ee aan qur'aanka ka qaadanayno waxa weeye ixtifaalkana aan u deliishanayno ana allaha amaranaa bitawqiirihi wa tacdiimihi
إلهي وحونا أمري إنا نبي وينينو إنا تعظيمينو وتأذن معه نبي مركان لجوجنا إنا إذبتي سئل لنوا احتفال كان لشيء نبي الله دقيا وتعظيم نبي قال له وينين يا صلى الله عليه وسلم حفلة وحلو سميا أو لما موسى ولا احتراما قفل وينيني احتفالكم معنيه سوى تعظيم نبي إني أو وينين مر هدي إلهي نقول أمر إنا وينينو ده واجب هذا النصارى ده إلى قيام الساعة وإنا النبي وينين عليه الصلاة والسلام إلهي القرآن كحكول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كوي مؤمنين تهايو إلهي رسولك ساكهر مرنا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وركو إلهي النبي الرميو صوتك صوتك النبي هكاكر مرننا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ساد أذنكم يسوي يرتان وكلا هيوي يرنا نبي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نبي هأوي يرنا ساد أذنكم يسوي يرتان وكلا فلانو هبلو واسر هذا أذنك هأوي يرنا نبي سداس إلهي با تعظيمي إلهي با توقيري نداء تشريف وتعظيم با نبي لو يري يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله نبي نديه سكاسوي مركات ساس نبي اوغو يريسو عليه الصلاه والسلام إلهي بات كو داينيسا إلهي سبحانه وتعالى نبي مغعيسا اوغو مير يا محمد ولي مورن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نداء تشريف با إلهي ويري وتعظيم أنك نسداس أنك كو أوليسن إنا النبي إن تعظيم إن صلى الله عليه وسلم نداء تشريف با النبي ويرينا وأن توقيرنا أنه إلهي كدينينا بحين تسنى يعني آياتهاس تعظيم كالنبي ونجم مذيه سورة يعني حجرات والأكتهين أول كذا دن وحكاها ليس حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم نبي حقوق دي سأكله هاي مؤمنين تأكله وخلقك كم مذيه إلهي وحو أمانه سبحانه وتعالى كوا نبي كأذب قادنا يو تعظيمنا يو إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى كوا صوت كوا هوس ودغنا يو markay nabiga la joogan waa kuwa ilaahay qulubtooda iimaan u galiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu caayay oo waxaan waxba garanaynin oo jaahiliina uu ku tilmaamay kuwa nabiga u qayliyo innal ladina yunaadunaka min wara'i al-hujurat aktharuhum la ya'qilun ba ilaahay badankooda wax ma garanayaan waa jahalo waxa qaylinay nabigu alayhi salatu wa salam ta'dhim kaasu mudaya mu'miniinta kuleeyahay إلهي بان نبري دليل كالتضبات أن قرآن كقادنا إنه واحتفال كانوا دليشنا أن الله مدح نبيه في القرآن الكريم إلهي النبي محمد قرآن كوكو أمانة قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم نبي محمد وحد كسوغنت أيضا بعوين وقال تعالى إلهي وحر يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس ضدوا قد جاءكم وحايدين يمد برهان حجة مفسرين توحيكم فسرين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم نورا مبينا نور عدنا وإنيس ودجنا وقرآن كوا إلهي آياتك لو حكولي في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مرلبات فيري وحانبي قال لغوش النور قد جاءكم من الله النور إلهي حقي سوحيد كغيم النور باين كغيمد وهو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي محمد وكتاب مبين كتاب عدنا وإذن سود الجنبة إلهي إلهي حق يبادل الكيدين كلا بحيني أيضا صدر محينا تسنى يعني مدحق النبي محمد إلهي وأماني صلى الله عليه وسلم إلهي بأماني أساق مركو كهد لي أمانتي سوحو يري أدبني ربي فأحسن تأذيبي إلهي بأي أدبيي إذبتيدين هو وناجي وح يعني كون أحسن مياجر أحد إلهي دورتي وي
إلهي سبحانه وتعالى وحليه وربك يخلق ما يشاء ويختار ربك وحو دونو أبورا وحو دونو أبورا وندورنيا عالم كان إلهي با أبوري مخلوقا علوي يسي سفلي يسا أحد كون ربيبنا كدورتي وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعوري حسان بن ثابت شاعرك النبي قوها من فحول الشعراء شعراء الرقوة دواوين النبي عليه السلام أذو أمان جريبه كمدها وعيري وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وشق له من اسمه نبي مقعي سبا إلهي مقع وقجاحي رؤوف رحيمها إلهي كم مقعابي النبي لما مقعوا أسقوا إليه هيبا إلهي كم مقعابي ليجله إلهي إنه تعظيمي النبي فذو العرش محمود عرشك أحد كي أبو ري مالك وها وإلهي محمود مثل ما هذه وهذا محمد كان والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعوك له يري حسان بن ثابت أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثر وحان أرك يا أبو يرانوغو ننكستو النبي أمانة أبو يري إنه ننقابي ويهي وكوك يعني وسوق قابي أمانة النبي هدو ربها كحيل دير هذا انتو ربب إذ الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى إذ الله أثنى بالذي هو أهله إلهي باكو أمان النبي محمد وحو إهل كوها فما عليه دشي سوكو أماني فما مقدار ما تمدح الورى مخلوق واحد كو أماني يعني حقيقي قاري سابو مخلوق أمان توضا ميلنا النبي كما قاريس عليه الصلاة والسلام إيه قف كان أمانيو والنبي قد جعل با مرتبة كل راذينيو ونكوه لياوي وكوه لي لكن محمد واحد إلهي كمليه ودورتيوه أدلات كاس وقرآن كو إدل محينا تسنيان انتاسو آيضو وحينا تسنيان احتفال كالنبي صلى الله عليه وسلم النبي الله احتفالك سيدو كالي أحاديث تأيي سنة مظهرة هدان الله بانو وحاكسو من حديث صحيحة احتفال كالنبي صلى الله عليه وسلم صحابي قتادة لي رضي الله عنه يا وحو لي النبي أيال لويدي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين مالك اثنين تام حاد أسوم يسابع النبي السؤال قال وحو النبي فيه ولدت وفيه أنزل علي ومالك الله يطلع قرآن كان اللي يقصو دجي إمام مسلم بحديث كصحيح سكوري أبو داود نسنن كيسو كوري هذا نبي عليه الصلاة والسلام وحال طلي بشر ربيع الأول إلى اللبية طبعا كذا قرآن كان وحال وسود دجي تضبية طبعا كرمضان لبدا واللبا مالين وإسنين أيهيد لبية طبعا كربيع الأول ومالين إسنين هو نبي قد شيء تضبية طبعا كرمضان مالين إسنين أيها وحي كان لقوا بالله النبي الله وحي عليه الصلاة والسلام لبدا حادثه ولبا النعمة واوين waxaa la isu waafajiyo labadu maalinka isniinta looga dhigay nabigeennuna uu cibaadada ugu weyneeyay oo soonka ugu weyneeyay waa inay tahay xaadiso weyn oo taariikhi ah oo mudan in la weyneeyo la ogaado way ya mar haddii nabigaas su'aashiisii markii la weydiiyey maanta walaalayaal dadka mar haddii quluubtoodii baa daboolan oo wax daliil oo anfacaya ma jiro haddii la yidhaahdo yani nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu soomay maalin isniin ah markaasaa la yidhi maxaad u soontay waa maalinkii lay dhalay war daliil kugu filan miyays ahayn nabigu cillo kale kuma jawaabinago war haddee waan soomay oo dee soonka waa cibaado ilaahay soonku laakiin muxuu yidhi nabigu waa maalinkii lay dhalay bal jawaabtaa macnaheedu waa maxay waa maalinkii lay dhalay macnaheedu waxa weeye maalinka lay dhalay waa maalin nicmo u caalam kan raxmad weeye nabiga oo caalam kan ilaahay nicmo uu keenay way marka maalinkaas asaga waxay mudan tahay in ilaahay lagu shukriyo saas darteed baan u soomay buu nicmada labaadna wuxuu weeye inzaalul qur'aan qur'aankana waa la igu soo dejiyay saasaan u soomaya
حديث كاس ميوسا كوغوف اللين حدون قلبك أقول دبلين يا وكوغوف اللين جوابت النبي كوغوف اللين عليه الصلاة والسلام قف كلام حد جواب أوسو يسا كوقنا جوابت النبي ما حد أسوي ما يسا إسرينتا ومالك الله يدلي هكوغوف اللنات ديني واحد قال هيانت ديك الله صومها وحكو قال لي مالها اسكت دقيس آيات كون كوغو دول آخرين هناي وحكو قال لي مالها اسكت دقيس أي أنت إلهي كو أنفعي يوم بأنفعي ساي حديث كلابات اللو دليشنا احتفال كالنبي عليه الصلاة والسلام مسلم يا بخاري وحي ورنا يان صحيح هذا عبد الله بن عباس لقى وريه إنه يري نبي محمد بن مدينة صلى الله عليه وسلم markaas wuxuu arkay yahuudi oo soomaysa maalinka yawm ashura leeyahay uu su'aalay nabiga maxaad u soomaysaan buu هذا يوم نجى الله بني إسرائيل ومالكي نبي موسى إيو ريب بني إسرائيل الله وبدبادي عدو قودين وهلاقي أو فرعون أو ساس مرة ديتهاي فسامهم موسى النبي موسى صوميو أسوأ إلهي نعمة أو شكرين أيو أنك نوان صومينا بيراد اليهود نبي جوابتي سمحي نغط أذنك إذن تعلمير ما وحويري أنا أحق بموسى منكم نبي موسى أنا إنك أوليس رسول إلهي بوها أنا رسول إلهي بانا فسامه النبي وصومي وأمر بصيامه يوم عاشوراء وحو النبي أصومي والنعمة إلهي بوكو شكرين يا نبي موسى بدبادين تلا بدبادية يقوم كمؤمنين تها فرعون لقى بدبادية قال كلها لاقي حديث كامركو سوق هذا ابن حجر محيين محي دليل أطهي احتفال كالنبي صلى الله عليه وسلم مالك النبي موسى لبدبادية هدي الله صومي والنبي نفتي سوء صومي مالك النبي محمد ودا شيء با كفل بدنه دلشada النبي محمد با نعمه ka weyn bay ahayde inaanu ihtifaalno on ku faraxno ayada oga xaqsan buu ya adillada quraanka iyo sunnada ah Allah nagu anfaco waxaan idin raacinayaa intaas culimadii muslimiinta markay adillada quraanka iyo ahadiista aqriyeen adillada aan soo naqlinayno dhan culimada islaamka aanu ka soo naqlinayna waxaan anagu ikhtiraacanaynaa ma qofka horta inuu fahmaa la dooni walaaliya dadka wax jinni baa ku quflan walaalada waxay tiraahdaa dhag war cuntay warka bar labaad ma cunto Soomaa hadii mar hore wax lagu soo shubay oo kugu quflan yihiin waxba ha fariisanina waxaaga iska hays hadii kala Soomaa adigoo war lagu akhriyo aan fiirin adigu diinta u laabo bal waxa adillada la sheegay quraanka iyo xadiiska iyo aqwaalul a'immada aqwaashoodi raac oo ku noqo waxa lagu soo darinay wax kala maaha ina adigu bal miisaanka asaato tiraado bal waxaan maxay ina tiraado way wala culimada islaamka diintu waxa soo bilaabatay maaha diintu waa ittibaac maaha ibtidaa wax la bilaabaya maaha waa naqli diintu waa sanad dadka aan cilmiga lahayn ba waxay u fahmayaan kuwa waxa laga sheegay haddaan xaqi fahanay adar wax maada fahmin hadda dhuntay ya diinkan xaqan waligiibu musalsal ahaay oo salaf khalaf ba salaf ka soo rareys jiil buu ka soo raray diintu waa sanad bay diintu nagu soo gaartay ilaa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bal culimada islaamka oo aan kutubtooda haysanay oo aanu i'timaadaynay marjica noo ahayd haday tafsiir tahay iyo haday xadiis tahay iyo haday fiqh tahay de culimada islaamka aan ku raacayna kutubta aan haysano wax kala baxayno dhan rag qoray yaa waxay ka hadlayaan ihtifaalka nabiga sallallahu alayhi wa sallam aymadaas bal fiiri kutubtooda ku noqo hadaa doonays waxaan kuugu sheegaynaa inaad kutubtooda ku noqoto way علماء الشافعية إمام كوين اللي أبو شامة الإمام يحيى بن شرف النووي الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي القاضي عبد الوهاب بن علي السبكي
الإمام عماد الدين أبو الفداء ابن كثير صاحب التفسير وصاحب البداية والنهاية هذا وحانو أرقنا فهذا ابن كثير كأنه يقول لك قوة وطان هذا الكتاب كيس محاضو وضتا لما كتابه ووين بمولدك كقرأ ابن كثير احتفالك النبي وكهد لي عليه الصلاة والسلام مركا تفسير كيسنا هوستا تكو وضتا كتابك ومولدك كقرأ إن مرة بتدمياه يا ابن كثير إمامك اللي يرادو شافعية رجلوا ووين بكملها الحافظ ابن الناصر الدمشقي الإمام ابن حجر العسقلاني الإمام السخاوي الإمام جلال الدين السيوطي الإمام الحافظ ابن الدحية ومالكية رجلوا ووين كملها لما كتابه ووين بقريه كتاب لي السراج المنير في مولد البشير النذير يا كتاب لي التنوير في مولد السراج ابن الجوزي إمام كليراد ابن رجب الحنبلي أئمة صورن رجع هذا أنتريودن وأئمة أجوا وين علماء مفسرين تا رجع أجوا ويناوي معتمد كأوها قول كذا اللي قبسني الدين تنبأنو اعتماد إني عن كده ينيني نين قري كتاب كقري مولد كألفي وكتاب ألفي إيا نين مواليد حاضر جري أو كقيب قال جري أيه وكلا قرنا رجع أركيس أنت هديك قفلنا وين حاكو قفلنا وحاكو دقة يا إلهي بيقانا سبحانه وتعالى محان قرآنك أدلة قرآنك يا أدلة السنة يا أقوال الأئمة المجتهدين المتفق على جلالتهم محان أدلة قرآنك يكون السنة يا أئمة وين جلالته يعني الدين تودا لقوك الصناعة أن أقواشه ذي كوسو نقلينا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من يحيى ليهلك من هلك عن بينة ومن حي عن بينة قفك إنه هلاك سمو أسوى حقي لو عدي حقي واللقو عدي عداد هلاك سمو يصادقه كجرتا ننكي نولانا يانا حقها كون نولادو إشي سيء قلبك سبها كو قبوستو إيمانك يعني أدلة داس ثابت كا قلبك سوها كو دقو أو ها قبصدو انت وحان idin raacinaya maanta walaalayaal dadku waxay og yihiin waad ogtiin adinkaba waqtigii hore ihtifaalaadka mawlidka waa la dhigi jiray alayhi salatu wasalaam ma la sugu iimaan jiray adiladan hadda quraanka aan soo qaadanayna iyo intaan waxba adilla lama soo qaadi jirin siirada nabiga laga sheekeyn jiray alayhi salatu wasalaam nabiga madxigiisa فضائش سلقيسة سيرديس النبي خلقي هي أيا أمد اللوجة شكينجر أمد وناكسن بيا هيدو أهل إيمانه مر هديب اللي يرادو احتفال كعاول اللي يسوي إيمانه يواسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل قفه سؤال كان يجري ما بجرين لكن ما أنت زمن كأنه واحد عضي waxaan naga sii dambeeyana wuxuu noqon doonaa ilaahay baa garanayay waxa dhacday maanta waxa la isku haystaa waa nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ya nabi maxamed lagama sheekeen karaa maanta la isku haystaa waxa idin dhiman ma jiro ilaa rabbul izza maxaa idin dhiman oo kale waxaan idin sheegayaa dadka inkirayo balarta weydiiya mid waa su'aal waxaa la rabaa dadka leh ihtifaal la iskugu imaan karo adilladaas quraanka ah inay horta ka jawaabaan iyo xadiiثaas waa loo baahan yahay intaasoo daliil ah bal inay ka jawaabaan waa loo baahan yahay tan labaad waxa weeye culimadii islaamka oo a'imadii waaweyneed ee mujtahidiinta ay wakaa kutubta ka wada qoray mawlidkii maxaafishana xaadiri jiray oo fadaaisha ay leedahay ihtifaalka nabiga ka sheekaynayeen
بل هل نين أهو لجو كلسون يا علماء الإسلام ككمدة واحتفال كالنبي الجديد عليه الصلاة والسلام هلا كانوا وهابي وهذا الدوي من موجي بل هلا كانوا وقمنا ولا قبضن كرو قف إنه يسكير هذا وحن أنا الديد إلا مرة بو وإنه صورنا قلال الرواء إنه كانوا أئمة الإسلام أو كهذا اللي مولد كان النبي ما بنانا له هلا كانوا سؤال شاولو بهاي جواب تد يا الله جربه نين الله جربه احتفال كالنبي الجديد وحا سؤال لبعض نينكو وحو ديدا يو هاشيغو نبي محمد عليه الصلاة والسلام هبيني مالين كتابه سوقول لهم قوة حديثي وأقرنا ياي ليسوما إيمان كرو بلورت إسو إيمات كان وحو ديدا يو هاشيغو ما ينسير هذا النبي قال لك شيك نبي كشيكين تسميو ديدا ياي ما ففردق على ففردق ديدا يا وحو ديدا يقفك إنو شيغال روا إلى هذا وحال فهم لا يعني من كاس oo laleeyahay war wax aad diidantiin cadeeyo waa maxay wax ay diidan yihiin baa la garanay mawliidku ma banaana bay leeyihiin mawliidka ma banaana aad leedihiin muxuu yahay isu imaadka miyaan banaanayn ma akhrintaa siirada caawa la akhrinay hadda bishu markay soo bilaabataan siirada nabiga maxabada nabiga sallallahu alayhi wa sallam ta'diimka nabiga alayhi salatu wasalaam weynayntiisa shafaacada nabiga salliga nabiga يعني صفات كيسي وناكسنا أو خلقي يا خلقي هاي سيرتي سي أو دن يا شمائشي سي بالله شاكيني وح أيديهم وامحي هذا بوح أيديهم والنبي كشاكين تيسا وح كلامه كشاكين النبي جوال ما النبي مجي عيسى كهونا يان صلى الله عليه وسلم النبي مجي عيسى إلا شاكمية كهونا يا مرهدات أئمة الإسلام كهيستان الذي أصلين كي قرآن كي حديث كي اللي يدنسي وحان هذا الجوجا واحد من العسنتان بما يوسف النبهاني وحويري وما قد شاهدنا حمارا مسابقا جوادا وتيسا عليس والنمراوي وما قد شاهدنا ولقانا أنه ما نارك بوير حمارا دمير مسابقا لا ترتمي جوادا فرس بوير ولقانا دمير فرس قرب أردي ما دمير با فرس قاركر وتيسا أرقنا ولقانا ما نارك بوير أرقي صار عليس والنمرة أرقي كل أنا لباح يا شبال بان لا تقالمي ولقانا ما نارك بوير حوش يا أخو تلمامية مركو إما دا سا أسو نغلي الرقي دين تلوغة دينا اعتفال كالنبي كهد لي وحا هذا ميلاهن كهد هذا ليو تلمامية وأرقي مركا واحد وحين وليين مقل بعد مقليسان هذا اسكت جوكتان يا أئمة الإسلام رجي مجتهدين تها وكاس وحلا قرب لقو أو بل وح يعني أما كتاب وين أو معتبر له أما اللي يقانو علماء الإسلام ككم ذا حلا صو شيء مجرت وهو حادث وهذا اللي صوب الله وهذا يمنه وإيمان لان وبدع واحد إيمات وعن دين شيء دينته وحي شيء وحلا يلاذو كتب علماء مركي كهذا ليان وحلا يلاذو أصول البدع عاجل وح مولد كديد يهرت وبدع بدعه لح فرقة أصلوها يمكن اللي خوارجته يا معتزلة نمك اللي يداد شيعة نمك اللي يداد رافضة نمك اللي يداد مرجئة نمك اللي مجسمة ده لحدا فرقة يا وحال يداد أصول البدعة بدعة دن لحدا فرقة كبلاوت تيلا أرك وحي أكل بحض اللبية طبعا لحمة لوضا من اللبية طبعا وتضباطني يلا تضباطني يلا بدي فرقة النبي الشيخي صلى الله عليه وسلم وعير أمدان وحي أكل بحث صدح هي تضباطا فرقة لبئية تضباطا وأهل النار هل مدها أهل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام لحدا أصول البدعة اللي يدادو تيب اللبية توم بي أكل بحيو وتضباطا يلا بي نغني يا أصول البدعة كوا هد الجوجو لحدا أصول البدعة لحدوا بويش بهن خوارج ويهين وأحاديث بيكون رمومين شيعة ويهين وأنا من كمدلق ناق مفرن تله ما لارك ناق أنت بقول كورفران سكر نغني قدرية ويهين وح قدره الرميسيين مله مرجئة ويهين لحدا أصبوا ويش بهن مركا يعني
لحد بدعو أو أصول البدعة الأورنجري فرقوينكي لحد بمدي أو يعني أصنع سنيدو أو أخ سنيدو لحد بكفر عنتي أو واحد يقدم وذا اللقضي وواحد اللي جو يا markay culimada islaamka meesha ay ka hadlaysaa u garab ordayaan waa sidoo imaam nabhani sheegay waa un orgigaas libaaxa iyo shabeelka isku taagay ya ama dameerka faras baan la tartamayaa le waxa kale ma yaala meesha marka insha Allah ta'ala diinteenu waa sanad waa silsilad arinta bal si fiican u ogaada diinku waa sanad waxa culimada xadiis laga soo wariyay ninka la Abdullah ibn Mubarak muhaddisiinta oo in kamid ah hadalhiisa kamid ah lawla al-isnad la qala man shaa ma shaa haduna sanadku diintu hadayna sanad lahayn waxan cageed ka keenta aan lisdahaynin qof la arka wuxuu toonu diin ka dhigi lahaa wardinku waa sanad diintu silsilad bay leedahay waxaan kaloo idin sheegayaa mawlidka ihtifaalkiisu waa ijmaac caalamka islaamka oo dhan baa laga dhigaa waad ogtihiin haddaad idaacaadka iyo yani telefishinaha ka fiirisaan kulli caalamka islaamka oo dhan waa laga damaashaadaya ihtifaalka nabiga laga sameeynaya alayhi salaatu wasalaam annagu haddaan Soomaalinaayna muslimiinta islaamka oo ijmaacoodan ka midnahayo waanu la ihtifaalina waxa kale oo idin sheegaya Soomaali haddaan nahay dadka Soomaali horta waa dad muslimiin ah dad aslu diin ah ayna islaamka ku dhashay ee waqti hore islaamku soo gaaray dad waxa ahlu dalaalka hadda socdo yaa waxay dadka u sheegeen maalinka u sheegay oo gadhigayaan dadku wax diinta hadda la soo gaarsiiyay diin cusub وحد الدين دتك اللي سو غارسيه اوغا دغيان دينكينو وا قديم انت سو قرني انت تاريخ ذا مريسه هجرة النبي عليه الصلاه والسلام اسلام كينو واجرا انتو سن النبي عليه السلام مكه كهجرونين مدينه وسو هجرونين اصحابتي سو هاجرتي ارض الحبشه وسو هاجرتي دولكان اماتي اسلام كسو وقتيغا دولكان وسو غاري الى يومنا هذا الى انت اسلامي waxa u maleynay inuu hadda islaamnimada ay soo gaartay marka lalaalkoodu ayaga ayuu dhibaya ninkii doonana iimaanka iyo xaq ha qaato kii rabana lalaalkiisa ha ku fogaado asaga ayay dhibaysaa way insha Allah ta'ala inta ayaan ku soo gaabinaya aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh